اللهم بارك لأمتي في بكورها واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة وصبحي حلي هور aan kacno waa hadiyada ugu weyn aan dayacno qiimaheedana aan garanaynin waxa jirta mar aan baxsaynay ama research gareynay xog yaalo ku saabsan dadka milyaneerada ah waxyaalaha ay qabtaan waxyaalaha noloshooda siday ku noqdeen milyaneerada dhan midba midka ka dambeeyo ma jirto qof aan kala hin subaxii xiliga anaga aan dukano salaada fajrka 2 saac ka hor qof walba wuxuu kacaa xiliga anaga salaadii fajrka aan dukano saacada ka hor halka meesha anaga muslimiin aan kana hayna aan badayacnaba salaadii fajrka ragaasna ayagoon salaad xitaa ay salaheen ay waxay kacaan xiliga anaga aan kacno salaada 2 saac ka hor waxa jirta buuga akhrin jiray buugaasna waxa ku qornaa oraah cajiib ah orahdaas oo waxay tahay qofkii ku guuleysta kicida subaxii hore 360 maalin si joogto ah kuma fashilmo familkiisa ama qoyskiisa inuu ka dhigo dad milyaneer ah rasuulkeena maxamed sallallahu alayhi wasallam aad ayuu amaani jiray kala haada xiliga hore waana kan yiri ilaahu u barakay umadayda bukuurka ama xiliga hore kicida ilaahu u barakay xiliga saxaabada waxa dhacday nin ka sheeganayo xaalad adag inuu imaaday Umar bin Khattab ama Umar al-Faruq saa u taqaanidba markaas ayuu wuxuu dhahay ninka marka xaalad adag ayuu ka sheeganayo Umar ayuu xaaladiisa u sheegay su'aasha ugu horeysay ee Umar bin Khattab uu ninka weydiiyay wuxuu ahaa suuxi hore ma kacdaa macnaha suuxi dhowrtii hore ma kacdaa oo ma kala hadaa markaas ayaa ninkii wuxuu sheegay inuu hurdada ku daaho markaas Umar wuxuu dhahay adiga ayaa mas'uulka ah inaad faqri ahaato ilaa weligaaba sababtoo ah barakadu waxay ku jirtaa aroortii hore inaad kacdo ninkan aad arkaysaan waa Tim Cook madaxa guud ee shirkadda Apple wuxuu caado u leeyahay inuu subax walba aroortii kaco xiliga uu kaco ma taqaaniin waa 3:45 daqiiqo subaxdii hore saddexda waage waa 9:45 daqiiqo xiliga ka hor salaada fajrka ugu yaraan wadanka waxa laga dugtaa 12 saac ama 11 saac santin adi iska dheh 2 saacadood iyo xoogaa ka hor inuu kaco ayuu caado ka dhigtay subax walba dabcan ma dukanaya muslim ma ahan laakiin wuxuu sameeyaa wuxuu leeyahay waxaan sameeyaa ka jawaabida emailada ayaan ka jawaabaya emailada wuxuu kaliya u kacay inuu email ka jawaabo waxyaalo kale uu qabsado anagoo muslim ahna waxaan seegnaaba mararka qaar salaadii subax wuxuu kale leeyahay waxaan sameeyaa jimicsi waxyaalaha jirkeygan kala bixiyaa sidoo kale wuxuu leeyahay markii la gaaro 6 subaxnimo ama 7 subaxnimo waaga wuxuu ii bariyaa anoo subaxii umuuro badan fulisaday hadda waxaan tusaale u soo qaadanayna dad kamid ah dadka dunida saameynta ku leh waxaan soo hadalnay inuu Nabi Maxamed ku jiro Umar bin Khattab markii laga soo tagay saxaabiyadan dunida hadda aan ku noolnahay aan ka soo hadalnay dadka ugu saameynta badan leh teleefoonadan hadda aan wadano Apple ko kale dadka soo saaray shirkadaha madaxda ka ah ayaan tusaale u soo qaadanay waxa soo dhan sababta u soo sheegaynay waxay ahayd kaliya tusaale hadda waxaan rabaa inaan idin siiyo steebiyo yar oo aad ku xaqiijin karto guulaha subaxii hore markaad kacdo steebiyadan haddii aad raacdo waxaad ku guuleysan doontaa kicida subaxii hore iyo faa'iidooyinkeedaba number 1 waxay ku leedahay aslan horta u kac salaada subax waxa soo dhan inaad ka soo tagto trainina u kacaya waxaan email waxa soo dhan iska soo dayso fadlan salaada subax aslan u kac markii aad ugu horeen salaada subax u kacdo markaas wax badan way ku hagaagayaan number 2 waxay ku leedahay caafimaadka dhimirka waa maxay caafimaadka dhimirka okay hurdada si dhaqsiya ah uga kacdo macnaha ma ka wado hadda seexatay 7 saac habeenimo seexatay waxaadna ka kacaysaa hal saac subaxnimo kama wado okay hurdada aad si dhaqsiya uga kacday xalay aad dhaqsi seexatay hurdada hadda si dhaqsiya aad uga kacdo daraasad la sameeyay ayaa waxay sheegaysaa in uu ku hagaago caafimaadka dhimirka wuxuu ku hagaagaa waxa yaraada diiqada iyo walbahaarka joogtada ah hadii war walbahaarkaaga waxa ay yaraadaan halka waxa kugu caafimaad doona dhimirkaaga dhimirka dadka aan garanayn dadka qofka dhimirku beelo waa shan maqashay dhimirkaaga ku hagaagi doona steepka saddexaad wuxuu ku leeyahay tayo hurdo oo wanaagsan leh waa maxay tayo hurdo oo wanaagsan leh inaad goor hore seexato goor horena aad soo toosto waxay ku horseedaysaa inaad hurdo wanaagsan oo tayo leh aad hesho qof walba uu og yahay wax loo sheegay ma laakiin ma sameeyno steepka afraad wuxuu ku leeyahay waqti badan oo jimicsi inaad goor hore kacdo waxay ku siinaysaa inaad jimicsi aad samaysato jirkaagana uu ka qaado caafimaad iyo fiyoobiye fara badan fiyoobi ama caafimaad waa isku meeshii laakiin waxaad ka qaadi doontaa caafimaad fara badan inaad jimicsiga subaxii aad samayso steepka shanaad wuxuu ku leeyahay hal abuuryo la xoojiyay waa maxay hal abuur waa la wada og yahay dad badan oo dunidan dul saaran oo guuleystay sida hadda tusaale u soo qaadanay oo kale waa madaxda shirkadda Apple waxay guulahooda inta ugu badan u nisbeeyeen kicida subaxii hore sababtoo ah inaad subaxii kacdo waxay ka caawin doontaa in fikradahaagu ay noqdaan fikrado aad iyo aad u saameyn badan guulahaaga aad ka dhaweyso steepka ugu dambeeya idin siinayo waa steepkan lixaad wuxuu leeyahay wax soo saarka oo kordha inaad subaxii dhaqsi aad soo kacdo waxay ku siinaysaa in wax soo saarkaaga uu kordho okay wax
soo saarkaagu waa maxay maanta waxaad rabtaa inaad howl qabsato waxaad soo toostay barqadii 11 maalinimo soo toostay waa adiga 5 saac maalinimo markaas soo kacday howlahaagii inaad qabsato markaas ayaad bilowday qofna wuxuu soo toosay maanta 5 subaxnimo soo toosay sida awgeeda adiga iyo qofka ayaa wax qabad badan waxa ka wax qabad badan qofkii soo toosay 5 subaxnimo wax qabadkay doona ha noqdaan inaad noloshaada wax u qabato cuntaad karsato wax walba aad samayso everything wax qabada marka insha Allah mawduucan maanta halkaan ku soo akeen doona hadaa ka heshay like noo sii channelka subscribe noo saar wadooyinkii 30 kuna ku tagi leeyana hayna insha Allah muuqaalkan maanta halkaan ayuu ku egyahay ويبلغ سعد إلى منتهى